maanta oo bishu 6 tahay waxaan ugu soo booqday magaalada Garowe ambassadorka Soomaaliya u fadhiyo dalka Sweden oo dhawaan loo soo magacaabay Soomaaliya oo ku faraxsanahay kulankii iyo booqashadu nala yeeshay runtiina Sweden oo kamid ah dawladaha Soomaaliya caawiyo muddada dheer wax badanna ka taray waxyaabaha dhinaca horumarka bulshada guud ahaan iyo dibadhiska dawladda Soomaaliyeed muddadii uu nala joogay waxaan ka hadalnay sidii mashaariicdii horey uga socotay Soomaaliya gaar ahaan Puntland ay u sii horumarin lahaayeen mashaariic cusub ay maaragtay wax noogala qaban lahaayeen iyo dhammaan arrimaha ku saabsan dibadhiska dalka Soomaaliya runtiina wada hadaladeena inta badan waxay ku soo dhamaadeen maadaama kulankiisii uu horey u ahaa oo isbarasho iyo xog waraysi ay u badnaayeen waan ku faraxsanahay isweydaarsigii kulamadii aan wada qaadanay waxaan rajaynaynaa inay miri dhali doonaan waad mahadsantiin. It's a great pleasure to be back in Puntland again. I used to come here many times in a previous capacity, and this is the first time I'm here with President Denny, and it's a great pleasure to be back together with Johan Svensson from the Swedish Embassy, and Johan has spent many years in this part of Somalia and in Somalia in general. The ties between Sweden and Somalia are very strong, and President Denny introduced us to colleagues who have roots both in Somalia and in Sweden, and who speak Swedish and Somali, and we are very happy that the relations between Sweden and Somalia, between Sweden and Puntland are very strong, because we have strong links at both political level and also at personal level. Many people have roots in both countries, and that makes this relationship very strong. We hope that Puntland and Somalia will continue to enjoy peace and rebuild the state and get economic investments, and we look forward to Somalia, where Puntland is playing a very important role to strengthen federalism and also to promote elections in the years to come. This is very important for Somalia and for the region, and it's something that we from Sweden, from the European Union, in the international community would be very eager to support and find ways to make sure that this can continue a process towards state building and democracy and peace and reconciliation. Thank you, Mr. President.